waagii hore waxaan marar fara badan ku ducaysan jiray in ay lacag soo gasho xirfad ma lahayn shahaado ma haysan haddana waxaan raadin jiray mar walba in ay meel lacag iga soo gasho marar fara badan waxaan ku oran jiray waalidkayga waxaan tagayaa meel ama waxbarashadii ayaan tagayay isi lacagan bas ku raaco kabacdi marka ay waalidkaygu isiyaan lacagta baska ma raaci jirin lug ayaan ku tagi jiray meeshii la ii diray ama meeshaan u baahnaa inaan tago marka lacagta la isiyana lacagta baska kuma raaci jirin oo jeebada ayaan gashan jiray marar fara badan waxaan halis gelin jiray oo cabsi fara badan iga haysay in beenta aan sheegayo lagu qabto waxaan filayaa dareenka aan lahaa waagaas in ay leeyihiin waqti xaadirkan dhalinyar fara badan oo wadankii ku nool oo xirfad la'aan ay hayso rabo balse laakiin in ay meel lacag ka soo gasho haddaba maanta waxaan kula wadaagi doonaa fikrad business taasoo aan kaaga baahnayn in aad wax lacag ku bixiso adigana ku siisay waxaad rabtay oo ah lacag inta aynan marka koowaad u guda gelin bal aynu fahanno macnaha lacagtu waa shay lagu qiimeeyo qof lacag haysta balse dhibaato hayso iyo qof dhibaato xal u haya lacagtaasi waxay ka soo baxdaa qof jeebadii waxayna u tagtaa qof kale jeebadii haddaba inagu waxaynu business ka dhex samayn doonaa qulqulka lacageed ee meel ka socda meel kalena u socda businesskan waxaa la yiraahdaa middleman si aad u fahantid businesska noocana waxaan kula dejin doonaa plan ama qorshe businessyada ugu waaweyn adduunkan aanu ku noolnahay ee ku dhisan fikirka middleman waxaa ka mid ah sida Uber, Airbnb, travel agents balse inagu noqon mayno shirkadaha aadka waaweyn waxaan isku dayi doonaa in aynu kaliya qulqulka lacagta meesha u socoto inaynu bartanka u fadhiisano haddaba buugii qalinkaaga soo qaado waxaad qortaa 10 qof oo ku ogtahay inay lacag haystaan 10 qof waxaan isku dayi doonaa in aynu dhibaato u xalino inaga oo caadiyan dhibaatooyinkaasi ayna gacanteena ku xalinin dhibaatooyinka waxa xalin doona dad kale balse laakiin waxay noqon doona dadka u jihaynaya dhibaatadaas in la xaliyo talaabada labaad aynu sameyn doono waxay noqon doontaa 10 qof waxaan la samaysan doonaa xiriir aad u wanaagsan mar walbana aad u dhageysatid hadaladooda iskuna daydid in aad ka soo dhex saartid dhibaatada haysata oo ay ka cabanayaan aad isleedahayna xal baad uga heli kartaa meel kale qof walba oo kamid ah 10 qof waxa weeyaan customerkeena si fiican aynu ula dhaqano mar walbana aynu dareensiino in aynu diyaar u nahay qofkan marka uu qofkaas wax noo sheegayna aad aynu u dhuuxno hadalkiisa ugu dambaysta marka aynu ogaano in hawl yar ku furantay qofkaasi aynu ognahayna hawsha in aynu soo fudaydin karno ama aynu xal u keeni karno ka feejigno qaladkan ha isku dayin in aad adigu fikirkaaga u soo bandhigato ama waxa xal u noqon kara dhibaatadiisa aynu kaliya u raadino wax uu qofkaasi rabo xal waxaynu u keenaynaa wuxuu rabo ma aha waxa aynu inagu rabo hatta haddii aad ogtahay fikirka aad adigu wadato ama xalka aad adigu wadato inuu ka wanaagsan yahay qofkaasi wuxuu rabo tusaale ayaan kula wadaagi doonaa laga yaabo adiga laftarkaagu inaad qaabkan lacag ku samayn jirtay balse laakiin aadan ka warqabin duhurkii marka ay tahay baa waxaa xaafadeeda iman jiray dhalinyartaasi waxay ku qayli jireen xaafadeeda isla marka ay labada duhurnimo noqoto waxaan diyaar u ahaa shaqo si shaqadaasna gacanteeda ugu soo dhacdo baa waxaan samayn jiray waan istusi jiray dadkaasi inaan xaafada joogo kabacdina waxa ay dirsan jireen sharaabkii ay ku qayl lahaayeen qof walbana dalabkiisa ayaan ka qaadi jiray isagoo guriga iska fadhiya waxaan isku dayi jiray inaan xasuusto qof walba waxa uu ii diray marka aan saa ugu dhigo sharaabkoodii iyo waxyaalaha ay ii dirsadeenna lacagta baaqiga ka soo hadha waxay igu oran jireen hooyo qaado marka ay lacagtaasi jeebkayga ku soo dhaco sidaa shaqadeeda kuma joojin jirin ee sidoo kale waxaan diyaarin jiray waysidii suuliga lagu geli lahaa iyo dacaskii ay xidhan lahaayeen shaqadaas waxa iga qaadan jirtay gelinkayga dambe oo dhan balse laakiin waxa ay soo geli jirtay lacag aad u fiican runtii aniga laftarkaygu haddii aan waqti xaadirkan wadankii joogi lahaa business noocana ayaan samayn lahaa haddaba qaabka businesskan uu u shaqaynayo aynu soo muraajacayno fahanka lacagtu waa qulqul u dhaxaysa qof lacag haysta kaasoo dhibaato hayso iyo qof dhibaato xal u haya inaguna waxaynu dhex istaagaynaa labada qof bartankooda waxaan rajaynayaa businesska noocan adigana inuu ku anfici doono uma baahnid inaad lacag haysatid umana baahnid inaad adigu isaanta business aad furatid dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa waa inooyo marka xigta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu